qaar qooqay oo kibray oo basharku ka hadhsan waayey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala sultadiya waxay hayeen maanta ka siibeen oo aynu arkaynaa binu cali oo ka talin jiray tuunis shalay ahayd markuu xijaab diiday shalay ahayd markuu salaad diiday shalay ahayd markuu ay yidhaahdeen masaajidka marka la gelayo waxay keeneen fikrada masaajidda in kaadhadhkan furo lagu galo qof kastoo tukanaya kaadh baa lagu siinayaa si kaadhka aad u mariso la ogaado inta salaadood aad tukatay dadku ay masaajidda ka baqaan inuu galo masaajid haddaad 5 goor gasho dambiilaad shalay ahayd markuu binu cali wuxuu soo rogay hablaha dhigta kulliyatu shariica inay basketballka cayaaraan iyagoo qaaqaawan cawradoodu ay muuqato kulliyatu shariica hadda maaha kuwii meelaha kale qaawanaa maaha waa kulliyatu shariica dumarka dhigta ayaa la leeyahay makshuufaat alcawraat iyagoo ah ha cayaaraan basketballka kii isaga ka horreeya burqiba ahaa markuu yidhi ramadaantu waa intaajkaa yaraanaya waddanka ramadaanta lama soomi karo wax soo saarka waddankaa yaraanaya marka ramadaantu ma waddanka laga soomi maayo buu yidhi dabeetana intuu kulliyada ay ka baxaan caskartu kulliyada militariga kulliyat alxarb intuu soo galo oo saraakiishu fadhido ayaa waxaa lala daba socdaa killi shaah oo Chinese dabeetana waa ramadaan intuu ugu shabaabo yidhaa cab qofka cabbi waayo waa la dilaya ma la xidhaya waa ramadaan wuxuu leeyahay intaajka waddanka yaraanaya waa idinka saraakiishii waddanka waa in idinka laydinka bilaabaa cabtaan banu cali intaan baladu ku kicin dooda miiska saarayd waxaa ka mid ah aadaanku inuu muscij yahay oo dadka laga joojiyo aadaankan tirada badan leh in la kala joojiyo kii caynkaa lahaa ayaa ilaahay ku soo kojiyey markaasuu isa soo taagay isagoo leh fahamtukum isagoo leh waan idin gartay waxa aad doonaysaan hana garane tag baa lagu yidhi markaasuu duulay dunida ilaahay ballaadhan baa meel qaadata la waayey kuwii ugu dhadhawaa markuu cirka maraya yidhaah hanoo soo gelin yurub oo dhan baa soo eriday shidaalku intuu ka dhammaan gaadhay buu maalda fadhiistay maaldaa tidhi shidaal baanu kuugu shubaynaa na dhaafoon dayaaraddaa mar kale loo shidaaliyey waa duulay haddana mooyi sacuudiga cimro iyo dee wuxuu sheegtay ee sacuudiguunbaa la keenay markii dambe addunya kullaha ninkii shalaytoo dadka diidanaa in xataa salaad la tukado ayaa meeluu cagadhiga adduunka ka waayey waxaan leenahay haddii fircoon ilaahay leeyahay falyawma nunajiik bibadanik litakuuna liman khalfaka aaya aayaddu maxay ku gabagaboobaysaa waina kaiira min annaasi can aayaatina lagaafiluun baa ilaahay yidhi markii fircoon badankiisa laynoo reebay si ay dadku ugu cibro qaataan ayaa haddana rabbi wuxuu leeyahay dadka in badan baan ilaahay aayaadkiisa arag boo ka dhegala haafila kuwii shalay caynkaasiyo maanta ooyaya ama baryootamaya markaad aragto inaad haafil noqoto maaha oo inaad ilaahay aayaadkiisa fahamtaa inaad garato yucizu man yashaa wa yudillu man yashaa inay isaga gacantiisa wax waliba ku jiraan oo ilaahay cidduu doono uu karaameeyo uu sharfo cidduu doonana inuu duleeyo dhaalimiinta ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu aakhiro xukumayo dhammaantood laakiin waxaan leenahay dunida waxa la yidhi aayaadka si ay u fahamtaan qaar baa tusaale laydinka dhigayaa baa la yidhi subxaana wa tacaala qofka marka la naco nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa wuxuu leeyahay وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول ربي مركو قف نعه جبريل بال رب الله الله أو وحيد هذا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه جبريل وهبل وان عبار ربي هذا أدقون النع فيبغضه جبريل بنبي عليه الصلاة والسلام ترى جبريل وان نعه الله مركو نعي إيه جبريل نعي أي ثم ينادى في أهل السماء أهل السماء الله دواقاه dabeetana waxaa la idhaha in allaha yubqidu filaanan faabqiduuh ilaahay hebel waa nacay idinku naca fayubqiduuna iyana waa nacan samada waxa joogoo dhammee malaa'igina waa nacda uma tuudac lahu albaqdaa'u fi lardi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dabeetana nacaybkaasaa dhulka loo dhigaa oo dunidoo dhan baa nacda degti niman طغاة هايو شلي كبريو قوقيو إلهي مخلوقات كيسا كو كبريي
oo dunidoo dhammi nacdaynu tviyada ka arag gaal iyo muslim cid tidhaahda war meel baanu ku seexinaynaa laga waayey miyaan ahayn kuwii ilaahay nacay gaal iyo muslim la waayo qof meel seexiya la malja ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay waatbacnaahum fi hadihi اdunya lacna ويوم القيامة هم من المقبوحين با إلهي يدي قاربوا الله كورما مركز ربي وحو ليه دنيا على إلهي با كل عضي آخرنا كوا مقبوحين تيا أيو كم دهانيا كوا لفقيا آخرنا كم دهانيا ربي سبحانه وتعالى يسقر ربينا نوانا قاضي مركا إنه أرقنه ضد طغاض هايو قوقيو شليتو كبري وإلهي خلقي سوك فدي وايي يا ربي وحينا لي كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين إلهي وحلي سبحانه وتعالى بدنا وحي كتجين بيره إيا بساتين إيا زروع إيا مقام كريم والغرة حيسته iyo nimco ay ku baraaraysteen waxay haysteen tiro badnaayeen baa Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala nimanka dunida meel ay ka seexdaan la binu ali gurigiisa markii dib loo jabiyay darbigu lacag buu ka sabaysnaa darbiga gurigiisa markii la soo jafo binaadamku markuu dhargi waayo account iyo ku gur meel kasta markuu ku guro haddana wuxuu ku guray darbiga gurigiisa euro iyo ay ku jiraan iyo dollar darbiyada gurigiisa ay soo jajabiyeen markaas tviyada dunida loo soo bandhigay iyadoo euro laga faqayo waa lacagti iyo dollar laga soo faqayo oo guriga darbigiisa lagu wareejiyay kuwaas waxa soo nicmo haystay ee haddana ilaahay khalqigiisa gaarsiiyay gaajo daraadeed inay isgubaan kala yiri wuu isgubay jaamacad buu ka baxay markuu jaamacad ka baxo shaqo waayay markuu shaqo soo waayay kale ayuu yaanyo tabaandho suuqa la fadhiistay islaan yaro askariyada u timiyo intay dharbaax labada indhood ku dhufatay tir suuqa kuma iibin kartay tabaandho caradii buu meel kale u dhaqaaqaba garan waayay uu isgubay waana casnimo in la isgubaa sharciguna ma banaynin laakiin waxaad dareemaysaa qofkan bini'aadamkaas aan nolosha loogu cidhiidhiyay ilaa la gaadhsiiyey inuu isgubo kaa dadkiisu ay isgubayaan gaajo daraaddeed iyo karaamo darro daraaddeed ay isla gubayaan ayaa darbiyada lacag ku samaystay إلهي وحينا ليه سبحانه وتعالى مركه فما بكت عليهم السماء والأرض تجستو ده عركة يدلك مدنا وما أوين وحي إلهي مخلوقات يسووا يكوام ياركته ما يا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين مليار ريكة تجين مليار وبليون قاركود بوحلة المامية kan war ka kac wadanka loogu taaglaayay Qadaafi iminka intay lacagtiisa sheegeen bay waxay leeyihiin 4 sanadood budgetka dawladda ay ka badantay dawladda Liibiya 4 sanadood budgetkeed waxa ka badan bay leeyahay hantidu isagu haysto oo xaqu ka keenay askari yaro waxin qalaabay buu haayay wixii dadku urursaday waxay umadu lahayd weeyaan waxa la ururiyay ma wax meel cusub ka yimi usarkan lagu tilmaamay inay qaniinimo dhaafeen waa wixii dadka ay boobeen kuwa darbiyada lacagta ka dhigtay maanta waxay leeyihiin malja iyo manja iyo meel ay galaan bay leeyihiin daaqat dhulka ku cidhiidhiyoomay wax uu ballaaran yahay waxaynu u baahanay inaynu inagu markaa ku cibro qaadano culimada taariikh waxay sheegaan Sa'd ibn Abi Waqqas saxaabigii la oran jiray Harbul Qadisiyya hogaaminayay markuu furtay meeshii la oran jiray Persia Iran magaaladii Madain la oran jiray oo meesha nimka Ciraaq la yiraahdo ku taala ayaa boqortooyada dahabkeedii iyo taajajkeedii iyo wixii ay wadatay buu arkay dabeetana intuu sujuuday ayuu ooyay Sa'd ibn Abi Waqqas isagoo akhrinaya aayadan quraana kam taraku min jannatin wa uyun وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ننقل هذه لسعتي أبا وحوري ومحاد أويسة ما أنت مال لأوياه يعني إلهي بابينو قولي وقولي سنيو وعاد ركتا بير شيء ما أنت كوكا لا تقنيه محاد لأويسة
sacad baa wuxuu idhi qaatalaka allah ama taraa mulkan yataxawal wa ummatan tazuul waa aaya buu leeyay min aayaati illaahi in lagu cibro qaato weeyaan miyaanad arkayn buu yidhi boqortooyadan dhana ilaahay tirtiray iyo ummaddan waxay magac iyo maamuus lahayd uu suubmay inkastoo ay gaalo ahaayeenoo muslimu ka xoog batay haddana waa wax u baahan in lagu cibro qaato uu tilmaamaya sacd ibn abi waqaas idan waxaan leenahay cibar baa ku sugan waxa meesha yaalla